mudanayaal iyo marwooyin kayfi ahaan waan idinka raaligelinaynaa wax kasta oo sida aad filaysay noqon waayay mahad iyo mudnaan gaar ahna waad naga mudan tihiin sida milgaha leh ee aad noogu soo sharafteen imaanshaha madashan oo eebba idankiis aan diiradda ku saarayno isirkeenna iyo waxayna mideeya taas oo ogaanshaheeda iyo aqoonteeduba ay tahay in aan wax badan ka weelino waayo daraasaynta qoridda ogaanshaha iyo kaydinta waxaan nahay halkaan ka nimid waxayna mideeya iyo waxayna soo marnay ummad ahaan waxayna dhexalsiinaysaa inaan noqonno bulsho og tagtadeeda kana talin karta timaadadeeda taas oo ugu dambeyn sahmin karta halka ay u socto ogaanshaha waxa ummad Soomaali ahaan inaga dhigaya jaadgooni ka duwan dadweynaha dunida ku nool gaar ahaan kuwa ood wadaaganahay sida Oromada, Anfarta, Rindiilaha, Masaayga, Tigreega iyo Maxaarada iyo ummadaha la halmaala waxay muhiim u tahay midnimadeena iyo ahaanshaha ummad mid ah oo diiradda saarta waxa tira dhaafka ay ka midaysan yihiin kuwaas oo iska indha tira inta faraku tiriska ah ay ina kala geynaysa haddaba aqoonta iyo ogaalka isirkeenna iyo waxayna mideeyaa waxaa dirsay oo raadraac ku sameeyay aqoon-yahano yar oo Soomaali iyo shisheeyaba leh aqoon-yahanka kuwada Soomaalida ee weliba foolhoraadka u ah waxaa ka mid ah Professor Maxamed Cabdi Maxamed Gandi oo caawa noogu madlan madashan quruxda badan inuu noogu la wadaago inta aan ka haleelno aqoonta la xiriirta isirka Soomaalida iyo waxa ay ka midaysan yihiin waxaana eebba ka rajaynayaa inuu inaga yeelo kuwii aqoontaas dhageysta fahma misna weeleeya Professor Gandi waa bare siyaasi qoraa iyo xeeldheere muddo ka badan 30 sano baarayay aqoonta iyo ogaalka la xiriira isirka Soomaalida kana diyaariyay buugaag iyo qoraallo cilmi ah Professorku waxa uu dugsiga hoose dhexe kaga baxay magaalada Muqdisho waxa uu heerka koowaad ee jaamacadda ilaa PhD kaga baxay magaalada Besançon ee dalka Faransiiska cilmi ahaan waxa uu Professor Gandi bartay kasmooyinka geologiyada iyo anthropology xilliyadii hore uu macallin ka soo noqday jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ka sukow waxa uu macallin ka noqday jaamacadda ku yaala dalka Faransiiska waxa uu sidoo kale la soo shaqeeyay akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta Soomaaliya burburkii kadib waxa uu qayb ka noqday geedi socodkii loogu jiray dib u hanashada dawladnimada Soomaaliya waxa uu qayb ka ahaa guddigii farsamada ee shirkii Carta kaas oo natiijadii ka soo baxday barbilow wanaagsan u noqotay hanaqaadka dawladnimada Soomaaliyeed Professor Gandi waxa uu bishii February sanadkii 2009 ilaa November 2010 soo noqday wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya sidoo kale wuxuu soo qabtay xilka wasiirka gaadiidka laga soo bilaabo sanadkii 2009 ilaa hadda waxa uu ka mid yahay hormuudka baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo xubnaha ugu firfircoon hadduu ay biidmo waxaan madasha ifiye ay caawa martino ugu yahay Professor Gandi inuu noola wadaago aqoontiisa iyo ogaalkiisa isirka Soomaalida la xiriira waxaan Professor ku soo dhaweynayaa madasha Professor soo dhawow bismillahir rahmaanir rahiim dhalinyarada ifiye golahan quruxda badan ee aad u buuxan noo soo diyaariyay mas'uuliyiinta guud ahaan maaragtay qofka yar iyo qofka weyn intaba waa mas'uuliyiin maaragtay marka qof waliba magaca uu ku fadhiyo meeshan waxaan jeclahay in aan ku salaamo salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh موضوعان aan ka hadlayno waa mowduuc sida saaxiibadan ay u sheegeen muddo dheer daraasaadkeeda maaragtay aan wadnay waxaan ku dadaalaynaa dadka Soomaalida ah muddo aan u maleynayo hadda malamahan 37 sanadood Soomaalida waxaa la horumariyay la develop gareeyay laga shaqeeyay qaabka in la muujiyo ay u kala duwan yihiin sidii loo kala diri lahaa marka waxaan caawa jeclahay meeshan in aan ka wada hadallo ka doodno waxa anaga namideeyo dadka mustaqbalka baritoola anaga waa weynaanay dadka dhibaatada xoogeedu ay ku dhacayso haysatana idinka waaye dadka la raba inaad istaagtaan waa idinka marka waxaan jeclahay caawa waxa aan ka hadlayno inuu ahaado oo keli ah wax mustaqbalka waliba kiina idinka dhisaya muujinaya xoojinaya waxa aad ku midaysan tihiin oo aad wada difaacan kartaan maaragtay
marka mawduucan marka qaybuu noqon doonaa wuuna isku dhex jiraa wuuna qaybsan yahay marka ugu horeysa waxaan jeclahay in aan ka hadlo waxyaabaha annagana mideeyo haddaan Soomaalinahay waxyaabaha annagana mideeyo haddii aan Soomaalinahay waxaa weeyaan terminolojiga haddaad garan weydaan afka aan isticmaalayo ereyada aan isticmaalayo waad sheegaysaan af Soomaaliya inta badan isticmaali doonaa waan yareynaa afafka ajnabiga ah in aan ku hadlo hadday dhacdo ereyada qaarkood inaad garan weydaan waad weydiinaysaan marka dadka Soomaalidu waa dad wadaaga deegaan dhaqameed marka deegaan dhaqameed markii la yiraahdo waxa weeyaan waxa ka baxsan dawlad haddii marka aan dhahno deegaan dhaqameed baa la wadaagaa dadka Soomaalidu waxay ku nool yihiin geeska Afrika waxayna ku baahsan yihiin 4 dal waxay degan yihiin Soomaaliya waxay degan yihiin Ethiopia waxay degan yihiin Kenya waxay degan yihiin Djibouti marka dadkaas Soomaaliyeed aan ka hadlayno waa dad aan xuduudkaas aan loo tixgelinaynin laakiin waxa isku xidha guud ahaan laga shaqeynayo moogta aan annaga marka aan bandhigayno moogta waxa dadkaasi ay wadaagaan waxa kamid ah afka marka afka Soomaaliga ah waa af waxa weeyaan fac weyn waa af ka tirsan bahda Kushitiga waa af lagu qiyaaso in uu ilaa 7,000 oo sanadood jiro waa af lagu wado in uu ka dhashay ka bilowday meel u dhaxaysa Ethiopia iyo Suudaan buuraha u dhaxeeyo marka kadib dadku ay sameeyeen hayaan oo dhinaca koonfurna loo hayaamay dhinaca barigana loo hayaamay dadkaas ayaga ah oo afkaas Kushitigaas ku bahoobay waa ilaa iyo 44 sinji waaye moogta waxaa kamid ah Oromada waxaa kamid ah Cafarta waxaa kamid ah Beejada waxaa kamid ah Saaxo waxaa kamid ah Ago waxaa kamid ah Bayeso labada waa dadku badan yahay waxaa kamid ah Soomaalida marka dadkaas oo dhan afkooda markii la fiiriyo xagga syntaxka ama si dhinaca jumlooyinku sida ay u samaystaan oo waxaan u maleynayaa intiina badan af Carabiga wax ku barateen jumlada ficilka iyo faacilka iyo mafcuul bihi suu rakiban yahay waxa weeyaan waa isku hal afafka marka la fiiriyo ereyada aan la kala amaahan oo dadku ay leeyihiin oo common-ka ana waa isku hal waan fasirnay deegaan dhaqameedka waxa la yiraahdo oo aan ka hadlayno dadka Soomaalidu ay wadaagaan afka ay wadaagaan dadka Soomaalida iyo asalkiisa iyo dadka aan bahlanahay ayadana waan ka hadalay qodobka ku xiga oo saddexaad waxa weeyaan waa diinta maaragtay dadka Soomaalidu waa dad Islaam ah waxa ka dhaxeeya oo mideeya diinta Islaamka arinta kaleeto oo dadka Soomaalida ka dhaxayso waxa weeyaan dadka Soomaalidu waa dad isugu xidhan laba hab bay isugu xidhan yihiin marka labada hab oo la isku daro anigu halkan waxaan isticmaalaa wax la yiraahdo xigto laakiin dadku ama waa xidid oo waxa ka dhaxeeya qaraabo oo guur ku salaysan ama waxa ka dhaxeeya nidaam aabaraac ah oo la abtirsado oo sax iyo khalad wuxuu noqdo meel ku arooradii moogtahay oo aaba la raaco arinta kaleeto oo bulshada Soomaaliyeed ayadana maaragtay ay ka midaysan tahay isla iyadoo la isticmaalayo xididkaas iyo xigaalada waxay shabahdaa bani aadamka moogtahay bulshada Soomaalidu waxay shabahdaa bani aadamka marka ay bulshadu qaybsan tahay oo ay u qaybsan tahay unugyo unugu wuxuu ka bilowdaa qoyska ayuu ka bilowdaa qoys af Soomaali ahaan waxaa laga yaabaa qoysku waxa uu yahay haddaan idin weydiiyo inaad dhahdaan bes waa aabbe iyo hooyo iyo carruurtay dhaleen aabbe iyo hooyo carruurtay dhaleen bes ma aha qoys waxaa waaye wixii anqowga ka hooseeya oo lugta inta la dhigto ilaa anqowga moogta marka haddii qoysas badan ay isu yimaadaan
waxay noqdaan heer ama heer marka la dhahana waa kubka. haddii reero badan ay isu yimaadaanna waa jilib. haddii jilibyo badan ay isu yimaadaanna waa laf. hadday lafo badan isu yimaadaanna waa qolo. hadday qolyo badan isu yimaadaanna waa tol. tol kuma wada dhalanin, waa tolane. ma garate waxaa weeyaan hab dhismeedka ay bulshadu u samaysan tahay waxaa weeyaan way isa saaran tahay, way koraysaa moogta. marka koritaanka ay korayso waxay ka bilaabanaysaa innaga markaan fiirino oday iyo islaantiisa iyo caruurtiisa waa qoys. laakiin qoyskaas imageka qofka bani aadamkaas u samaysan yahay markaad fiiriso waa qoobka inta ka hooseysa qoys baa la dhahaa. markii aad dhowr qoys ay meel isla degaan waxaa la dhahaa waa heer ha waaye ama waa reer, ama reer ha noqoto ama heer ha noqoto, waa kubka oo anqawga wixii ka koreeya ilaa jilibka waxaa waaye waa reer. markii reero badan ay haddana meel ku wada nool yihin oo degayn waxaa la leeyahay waa jilib ama waa jifo. haddii jilibyo badan ay isu yimaadaan waxay noqonayaan laf. haddii ay lafo badan isu yimaadaanna waxay noqonayaan qolo. hadday qolyo badan isu yimaadaanna waxay noqonayaan tol. markaa tolna waa tolane. halkaas su-aasha ugu horeysaa ka soo baxaysa in dadka Soomaalidu ay kabkab yihiin oo aanay abtirada iyo qabaa'ilka Soomaalidu wax permanent oo dhiig raaca mar walba aanu ahayn oo beddelmi karo maaragtay. arrinta kaleeto oo dadka Soomaalida ay isaga mid yihiin ayadana hadda way dhammaanaysaa. waxaa weeyaan wadamada qaar kood oo dadka Soomaalidu ay degan yihiin marka wiilka iyo gabadhu ay isguursanayaan si midnimada oo bulshadaas isguursanaysa ay u adkaato waxaa la sameeyaa aqalka inta adag. marka reer baadiya laga hadlayaa, lagama hadlayo magaalada. waxaa weeyaan dhigaha iyo maxaa la yidhaahdaa udbaha iyo oo aqalka iskaaleedkiisa moogta waxaa keena reerka ninku uu ka dhashay. rarada lagu dadaayo aqalka waxaa keena reerka gabadhu ka dhalatay. marka reerkii markaa wuxuu ku dhismayaa waa bulshadii hadda aan ka hadlaynay oo xididkii iyo xigaaladii oo xigtay isku ah maaragtay. aqalkii la dhisaayena waa ayaga moogta. waxaa kaloo uu yahay aqalku min waaye moogta. markii wiilka iyo gabadha meesha la isugu geeyo waxaa ilaahay laga rajeynaya inay caruur dhalaan. marka formiga aqalka Soomaaliga ee aqalka Soomaaliga hooriga ah waa minkuna waa minka caloosha oo de maaragtay ilmuhu galaan iyo asagana maaragtay uu noqonaa. waa la soo soconayaa markaas. waxaa kaloo la wadaagaa oo bulshada Soomaalidu ma fadhido. markaan leeyahay ma fadhido waxaa weeyaan waxaa laga yaabaa meeshaan inaad ku fadhidaan dee inaad nin walba uu reer yahay, gabadh waliba reer ka imaatay. waxaa laga yaabaa waxyaabaha aad sheeganaysaan inaanay sax ahayn waqti probable. gabadha indhaha caddaysay waxaa weeyaan waa suuragal. haddaad isla raadiso waxaa laga yaabaa inay taariikhda say usoo socotay dadku uu isbedbedelaa maaragtay. waxaa jira inuu qabiil ama beel ay jirto. waxaa jira condition baa jiro. conditionkaa jira waxaa waaye waa in dhul la helo. dadkaasi waa inay dad dhul degan ay yihiin. waa inay dad gaar ahaan dee maadaama aan bulsho qadiim aan ka hadlayno oo raboor oo xoog ah uu ku fadhiyo deegaankaas isagaa waa inuu rag difaaca uu jiro. dadka halkaa degani waa inay leeyihiin xoolo ishkin ah. dadkaasi waa inay magna qaadan karaan, magna laga qaadan karo. intaa markay dhacdo dadkaasi waa inay magac la baxaan.
markay magac la baxaan haddana waa inay xoolaha sumad ku dhigtaan ayagu ay leeyihiin oo calanka oo kale ah markaa kadib waa inay duub yeeshaan 6daa qodob hadduu mid jabo reerkaasi waa inuu kala tago markaa ama dad kalaad ku darmaysaa ood sheegan ama dad baad si equala isula abaabulay moogtahay oo markaa aad magac cusub oo la bixi ama waad raaci dadka ama dad kalaad isu tagaysaan oo magac aan jirin baad la baxaysaan dinamigaas iyo dhaqdhaqaaqaas Soomaalidu way wada wadaagtaa marka maanta meeshan haday kugu xumaato deegaanka kugu xumaaday waad guuraysaa dad kaleeto oo deegaankaaga mid ka fiican degan baad u tagaysaa ayagii baad magta la bixinaysaa ayagii baad dhaqan la wadaagtaa ayagii baad raacaysaa marka taana ayadana waxa waaye waxyaabaha ay ku dhaqmaan oo la midka dynamic inay tahay marka oo waxaas uu isbedelayo qabiilkaas uuna wax fadhiya aanu ahayn example sax waxa loo qaadanaa carta waxa ka soo baxay 4 iyo badh wax la dhaho magarata 4 iyo badh baa ka soo baxay 4 qabiil oo la yiri waa 4 qabiil oo waaweyn iyo beel shanaad oo la dhahay waa half waaye moogta hadda beesha shanaad qabiil waaye dib oo ma celin kartid moogta waa reer caadi ah waaye moogta marka haddii 20 sano kale oo dambe hadday sii joogaan waxay noqonayaan beel oo ah beesha shanaad oo inta ay u kala baxseen oo dhowr iyo 10 ka u kala baxsan oo markaa kadib cidii ka faracsanna ay ayaga ku abtirsadaan taana waxa waaye waxay u noqonaysaa xoojin arrintaada ayaan ka hadlaynay waxa la wadaago waxa kamid ah oo kaleeto bulshada Soomaalidu ayadoo saa u samaysan waa bulsho u habaysan dhadiglabood iyo da ku salaysan waaye maaragtay marka afka Soomaaliga waa very rich waa af hodan ah marka ilmuhu ay yar yihiin gabadha iyo wiilka lama kala saaro waa cunug marka wiilka iyo gabadha la gudmo waa kala weecasho moogtay wiilku wuxuu la noolaanaa oo raacaya ragga gabadhuna waxay raacaysaa hooyadeed iyo dumarka wiilku wuxuu noqonayaa gaashan qaad gabadhu waxay noqonaysaa gashaanti markii uu wiilku guursado wuxuu noqonayaa garmadoobe islaantu waxay noqonaysaa maaragtay gabadhu waxay noqonaysaa bilcaan ama waxay noqonaysaa moogtahay marwo hadhowdii waa la soconaya ilaa duq iyo duq la taga moogtahay marka age buu ku soconaa moogtahay saasaa loo socdaa sanad buuna ku shaqeynaa taana way ka wada dhaxaysaa dadka oo Soomaalida ah koow marka la soo socdo haddana dadka Soomaalidu uu formiga idinka halkan aad ku fadhidaan laga yaabo aan ahayn na way u qaybsan yihiin kaasaana aan qabaa inuu sax yahay ma qabo kaad ku fadhidaan meesha inuu sax yahay formkaas waxa weeyaan ama qaabkaasi qaab dhahayo waxa lagu salaysan yahay xirfad marka dadka xoolo dhaqatada ah iyo beeraleyda waa waran leh waa dadka dagaalka badan waa dadka buuqa badan waa dagaalada socodka mas'uulka ka ah intaas waa isku group waaye moogta waa professionally yaa dadka loo qaybin qolada kaleeto waa waable waablahana waxa waaye waa dadka xirfadleyda ah birta tuma maxaa la ii sheegaa haraga ka shaqeeyo ugaadhsada dharka tola dharka oo maaragtay dhaqanka ayaa laga hadlaa moogta oo markii ama harkaha la xidhan jiray ama maryahan alindiga ee waxa marka la sameeyay jiray dadka Soomaalidu ay sameeyay jireen dadkii toli jiray oo xirfadda lahaa dadkaas dadka kalena waxa waaye wadaado oo dadka diinta bara saddexda category ee waxay u qaybsan tahay Soomaalida aan garanayno oo qaab ah iyo saddex ka baxsan systemka saddexda ka baxsan yaa waaye waa dadka ku abtirsada wabiyaalka iyo dadka ku abtirsada magaalooyinka iyo dadka ku abtirsada jasiiradaha waxaa ku abtirsada baajuunta magaalooyinka waa reer xamar waa reer baraawe waa reer marka ma garan iyo dadkan webiga ku nool oo ah jareer weyn moogta anaga aan dhaano hadda oo magac siyaasadeed ah marka dadkaas ayaga hadda aan ka soo sheekeynay waxay leeyihiin xeer maareeya
markii ay degeen meesha markaa kadib Soomaali waxayna ka yimaadeen jasiiradda Carabta markii ay riixeen ayagu oo ay satal garoobeen oo ay degeen markaa Soomaalida timid oo haddana dhinaca jasiiradda Carabta ka timid haddana waxay riixeen maaragtay nimankii ahaa Oromadii bay riixeen marka halkaas baa isriixaas oo laga wada imaanayo jasiiradda Carabta yaa laga yimid baa la qabaa waxaa kaloo ay nimankaas Lewis iyo Cheruli iyo dadkii waagi hore Soomaaliya markay imaadeen bilaabeen inay wax ka qoraan dalka ay qoreen ay ayagana ay xigteen odayaalka qaarkood iyo culimada dadku aad waxay u raadiyaan in ay muujiyaan inay Carab yihiin moogta marka waxaa la wada sameeyay sax ha noqoto khalad ha noqoto abtir kulli wada gala maaragtay Quraysh gala ahlul bayt gala halka ka dhaca moogta marka labada information markay isbiirsadeen muddo dhan waxaa la iska haystay dadku inuu yahay Carab inuu yahay maaragtay marka waxaa markaas soo baxay iskool cusub iskoolka cusub wuxuu ka shaqeynaa afka iyo dhaqanka dadku uu leeyahay ma Carabba ama Masamiitba wuxuu yahay kow afka waa adayaan sheegnay waxa waaye waa Cushitic waaye Cushitic waxa weeyaan waa labo fasiraad baa laga bixin karaa Cushitic moogta fasirka koobaad waa fasir diineed waaye fasirka labaadna waa fasir taariikheed fasirka diinta waxa weeyaan Nabi Nuux wuxuu dhalay alayhi salaam wuxuu dhalay Ham iyo Sam iyo Yafit Ham wuxuu dhalay Kancaan Mizrayim waa Masar waaye iyo Kuush iyo Buut wuxuu dhalay lama yaqaan mar baa la dhahay Buut ama Buunti yahay moogta laakiin wuxuu dhalay lama yaqaan marka Kuush mar halkaas wuxuu galayaa aragti markaas aragti wuxuu galaa oo diineed buu galaa marna faraacinadii oo dhowr kun oo sano jirtay 800 sano oo ugu dambeysay marka ay joogeen waxaa jabisay dawlad la dhaho Kuush oo bartamaha waqooyiga Suudaan ka jirtay oo caasimadeeda la dhaho anaga Meerwe baan dhahnaa laakiin Marway dhahan baan wayna Carabta caasimadu Marway ahayd marka dawladdaas Kuush maadaama ay Kuush ahayd Suudaanna ay ahayd waxa weeyaan halkaana laga helayay afkan Kuushitiga ana meesha uu ka yimid ay Suudaan iyo afka مثلا maadaama afka Soomaaliga hooygiisu uu ka yimid Ethiopia iyo Suudaan dhexdooda halkaana ay ka jirtay dawladdaas Kuushitiga oo jabisay 8 sano ka hor dhalashadii Ciise faraacinadii abtirkaana waxaa la siinaa abtirada dadka taariikhyahanadu ay bixiyaan waaye marka magaca Kuush halkaas ka imaaday marka nadariyadii hore waan isla garanay oo iskoolka Carab baa leeyahay nadariyada labaad waxa weeyaan marka afka la fiiriyo marka jumalku u samaysan yahay la fiiriyo marka xididada erayadu ay ka imaanayaan la fiiriyo hadda fiiri waxaan isticmaalayaa microphone-ka waa anaga af Soomaali uma hayno waan qaadanay TV-ga waan qaadanay lama garan radio waan qaadanay koobka waan qaadanay computer-ka waan qaadanay laakiin qurac lama qaadan anaga iska leh
qansaxa annagaa iska leh webiga annagaa iska leh buurta annagaa leh ciidan gaduudan oo suubaanka wayaanta annagaa iska leh waxyaabaha aan la kala dayman oo aan xadaaraduhu keenin matalan hadda waxyaaba waxa badan oo aad u haysataan inuu Soomaali yahay dariishadoo kale Soomaali maaha waa Iiraan maaragtay miis waa Iiraan sarkaal waa Iiraan maaragtay marka waxyaabo fara badan oo waxaa jirta la amaahdo oo say u kala waaweyn yihiin bay Soomaalida ugu milmeen moogta marka waxyaabaha aan la kala amaahan oo erayada ah iyo jumalku say u samaysmaan iyo xididada erayada dadkaas haday aan ka hadlaynay oo neeshinada ah oo qaramada ah 44 qolan aan ku tilmaanay waxa weeyaan intaasay wadaagaan afka Soomaaliga ana ma aha samiit moogta samiit waxa ah Tigreega samiit waxa ah Xabashiga samiit waxa ah Yuhuuda samiit waxa ah Carabta laakiin annaga afka aan ku hadalno waa af kushitiga waay marka iskoolka labaad waa iskool Afrikaan ah macnaha Afrika dadka Soomaalidu waa dad Afrikaan ah waa dad dhaqankooda Afrikaan yahay afkoodu waa Afrikaan waa local wadankana wadan faaruqa marka la imaanayo ma ahayn cid kastoo imaanaysa xeebtu way ballaaran tahay hindi baa imaan kara oo gaala imaan karta oo indhayar baa imaan karta oo cid walba imaan karta laakiin waxa way cid timaada dalkan markay degto gabdhaheeday guursanaysaa caruur bay dhalahayaan afkay ku hadlayaan dhaqankay qaadanayaan marka halkan meel faaruqa ma ahayn deegaan bay ahayd dad baa ku noolaa dadkuna afkan aan ku hadlayno iyo dhaqankan aan leenahay buu lahaa marka labada iskool baa jira soo ma garan marka labada iskoolna ani waxaan aaminsanahay inagu waxaan nahay bridge ama buundo isku xidha caalamka Carabta iyo Afrika baan nahay moogtay waxaan nahay wadan islaam ah waxaan nahay wadan siyaasiyan ahaa wadan go'doon ah marka annaga si aan go'doonka uga baxno waxaanu noqonay Arab League waxaanu xigsanay oo aan ku dhagnay maaragtay islaamka baan ku dhagnay laakiin markii cilmiyan loo fakaro oo waxa weeyaan de maaragtay haddii la rabo de mustacarabiin baa tirahdo dhaw laakiin waxa weeyaan afka oo aan ku hadlayno iyo dhaqanka anaga aan haysanay iyo dad wajiyadeena dadka meesha fadhiya la fiiriyo dad baa indha yar u eg dad baa waxay u eg yihiin maaragtay European u eg dad baa Carab u eg marka meesha waxaad ka garanaysaa in la isku walaaqan yahay laakiin maxaa asal ah afka waa asal dhaqankuna waa asal waay ma garatay marka waxa waaye waxaan idin deynaa inta hadhay su'aalaha baan idin dhaafaa maaragtay haddii kaleeto caawa dhan waan soo jeedaynaa sheekadu way socon Professor Gandhi aad ayuu mahadsan yahay runtii waxaan malaynayaa in isbitaal qoto dheer oo runtii wax badan oo mugdi iyo dheer ku jiray kala saaray inuu sameeyey waxaan jeclahay insha Allah waqti waan sii doonaa su'aalo aad professorku weydiisan ee bakraal noqdo waxaan rabaa inaan professorku weydiiyo su'aalaha Soomaalida sidoo hadii loo sheegay waa ummad wax badan ka midaysan oo dhaqan leh oo diin leh oo af leh oo isir leh marka waxaa su'aal isweydiin lahaa ummadta ka midaysan maxaa ka yeelay ummad kala tagtay oo burbur iyo colaad iyo dhibaato intaa ku dhex jirta ayadoo ummado laga yaabo inay kala jaad yihiin oo kala duwan yihiinna ay hal qaran leeyihiin oo ay nabdoon yihiin oo isfahmeen oo nolol iyo nabad ay haystaan hadda marka waxaa su'aal isweydiin mudan ah maxaa Soomaalida u diiday inay noqdaan ummad intaas ka midaysan maadaama ay yihiin ummad kala tagtay maxaa ka yeelay professorka inuu kusoo dhaweeyay jaalle waa mahadsan tahay waxaan u maleynayaa jawaabuhu inay badan karaan laakiin waxaan isku dayaa inaan hal khad maro moogta dadka Soomaaliyeed sidii aan u sheegnay waxay ahaayeen markasta dad nidaam iyo system ayagu ay leeyihiin ku nool oo xeer iyo hab dhaqan leh oo odayaal ay u taliyaan
marka jabka ugu weyn oo Soomaalida meeshu ka bilowday waxaa weeyaan isticmaalku markuu imaaday odayaalka Soomaalida oo magacyada lahaa dee malaaq imaam boqor garaad mushaar ma qaadan jirin waxaa la siin jiray wax la yiraahdo sado ama amaan ama minaayo qolaba say u taqaano moogtay xoogaa yar oo xoolaa oo haddii martiqaad la sameynayo haddii dad la soo dhaweynayo maadaama gurigiisa lagu degaayo uu dadka uu ku soo riyeeyo yaa la siin jiray laakiin in xoolihiisa raacdo oo dadkana u taliyo ahaa moogtay marka isticmaalku markuu yimid xeerna ku dhaqa isticmaalku markuu yimid wuxuu ka bilaabay tilaabo markuu structure-ka fahmay odayaalkaas inuu mushaar u qoro odayaalkii markii mushaarka loo qoray odayaalkii kalsoonidii shacbigu uu ku qabay way luntay maaragtay been ayaa la idinka gadin isticmaalku markuu imaaday odayaalkii waagaa noolayeen kulli isticmaalka la heshiiyeen laga soo bilaabo obokh zaylac baad imaanee berberaad imaanaysaa meeshaan boosaaso iyo zoonahaasaad imaani hobyaad imaanaysaa xamar baad imaani markaad imaani kismaayaad tegaysaa odayaalka xeebaha deganaa kulli isticmaalka way la heshiiyeen qoraaladoodu waa yaalaan ciddii taqaana Soomaali Peninsula carabina waa yahay ingiriisina waa yahay talyaanina waa yahay heshiisyadii ay galeen oo ay isticmaalka la galeen waa buuxaan moogta annaga waxaan u haysanaa inaan malaa'ignahay malaa'ig ma nihin marka odayaalkii way ka go'een dadkii markay dadkii ka go'een waxay ogolaadeen sharcigii gaaladu ay la timid iyo askartii ay qoratay inay ka dhex shaqeeyaan shacbigiina la go'doomiyo moogta marka shacbigii iyo isticmaalku iskuma labin waliba meelaha qaarkood hadda waqooyi oo kale hadda dadku wuu guuray oo waa la isdhex galay laakiin isticmaalku wuxuu degi jiray 15 kilomitir 10 kilomitir meel u jirta meesha dadku u degan yahay marka odayaalka u dhaxayn jiray moogta odayaalka warka waxay u geynayaan shacbi weynaha isticmaalka ayaga warka u keenaya marka horta halkaas waxaa bilowday in xeerkii Soomaaliga la jabiyo in gaaladu xeer ay dadka ku dhaqda la timaado in odaygii uu macno beelo in ishaysashadii beelihii Soomaaliyeed oo jireen ay burburaan maaragtay marka horta waxaa waaye faktorka koobaad halkaasoo noqday dadka Soomaaliyeed marka oo shacbiga iska ahaa oo iyagu aan dadka madaxda aan ahayn maxay sameeyeen waxa kale oo ay sameyn kareen oo ay suubiyeen waxaa weeyaan in maadaama dhulkii dad aan islaan ahayn ay imaadeen isticmaalna uu yahay koow diinta aad in loo barto iskoolada gaalada inaan la gelin magacyo islaana in lala baxo moogta hadda markaa dadka Soomaalidu markay abtirsanayaan aad fiiriso ilaa 4 waqooyiga waa 2 ilaa 4 oday wixii ka dambeeya waa magac Soomaali moogta laakiin laga soo bilaabo magac awowgaaga abkowgaaga hadii laga soo bilaabo ilaa iyo hadda magacyadu waa magacyo islaana marka magacyadii islaam baa laga dhigay dugsi quraanada la dhigay waa la diiday iskoolada in la aado maaragtay gaaladu ay samaysay marka waxaa weeyaan halkaas waxaa ka imaaday jabkii ugu horreeyay oo Soomaalida ku dhacay oo ka yimid kaaba qabiiladii raaceen isticmaalka jabka labaad muxuu ka imaaday wuxuu ka yimid markii xorriyadda la qaatay talyaanigu asagaa dastuurku soo qortay baa dalka lagu dabaqay xeerkii Soomaaliga iyo dhaqankii Soomaaliga ahaana waa la tuuray jabkii iyo wareerkii iyo dhibkii uu sii batay haddana Allah u naxariisto Maxamed Siyaad baa imaaday Maxamed Siyaadna wuxuu keenay tukalo aan fahmayn oo hanti wadaag cilmi ku dhisan oo tii ka sii daran oo aan la garanayn marka waxaa weeyaan dadka Soomaalidu referencegoodii iyo marjacoodii iyo wixii ayagu ay lahaayeen oo ay fahmayeen waa laga weeciyay waxaan iloobay oo kale aan ku darin waqooyigana waxaa loo sameeyay dastuur London lagu soo suubiyay dastuurka London lagu soo suubiyay iyo kii koonfurta lagu sameeyay nidaamku laba nidaam oo kala duwan xataa baabuurta sida loo wado isku hal maaha
iskoolada sida loo dhigto qoladaana waxay lahayn wax la yidhahdo advance level iyo ordinary level oo secondary-gu ugu qaybsamo. koonfurtuna waxay lahaan jirtay iskool oo media superior oo keliya dugsi sare laga baxo. marka waxaa waxbarashadu isku hal ma ahayn, baabuurta sida loo wada isku hal ma ahayn. marka xilligii maxamed siyaad 72gii baan u malaynayaa waxaa la bilaabay in la mideeyo systemkaas maamulada ah oo hoose la sameeyo. marka dagaalkeena marka muxuu ka dhacay, isdiidku muxuu ka dhacay, wuxuu ka dhacay culture-ki Soomaaliga oo la fogeeyey, dhaqanka Soomaaliga oo la fogeeyey, xeerka Soomaaliga oo la fogeeyey, xeer aanan anagu shaqo ku lahayn oo dalka la keenay oo aan la fahmaynin. markii uu isfaham la'aanta ay korortay dagaalka ani waxaan ku fasiraa dhacay oo ehliga lagu magacaabayo hadda inuu yahay dhaqanadaas oo ishardiyeen. maaragtay dhaqanadaas way isku dhaceen. waxa inuu islaamku xag jir noqdo keenay waxay ka imaanaysaa halkaas. waxa qof kasta inuu xag jir noqdo keenay waa halkaas. ganacsadaa tahay, dukaankaaga qofkii dukaanka ag furto waa dile. haddaad baabuurey tahay ka baabuurkaaga oo kaleeta la imaado waa dilaysaa, soo ma garan. waxa aduu aad tahay wax u eg qofkii la imaado waa waxaasoo dhan wuxuu ka imaanaa dulqaad la-aantaas. waxa keenaya waxaa waaye naca iyo dhibaatada dadka maaragtay ka soo gaadhay nidaamyadii isdaba joogga ahaa, ama kuwii Soomaaliga ha noqdaane ama kuwii gumaysigu ka tagay ha noqdaane. halkaasaa burburka iyo jabka Soomaaliga uu ka bilowday. intaa waxaa markaa dheer cadaalad darro oo nidaamyadii jireen oo isdaba joogga maaragtay ay ku dhaqmi jireen. marka waxaan u malaynaa halkaas baa dhibku ka imaanaa. ilaa iyo haddeertaana weli lama abaarin. shirar baa la qabtaa, waxaa lagu magacaabay dib u heshiisiin ilaa 20 shir baa la qabtay. ani qaar baan ka qayb galay badan. marka la isu imaado waxaa laga sheekeynaa seen wuxuu qaybsanaa, annaga meeqa dibutaataan yeelanaynaa, annaga meeqa waxaan yeelanaynaa wasiir. laakiin war annaga maxaa nagu kala maqan, maxaan isu dilay, maxaan ku heshiin karaa ma jirto. moogtay dagaalkii marka waa meeshiisii. cid walba way ka cabsanaysaa, lama abbaarayo. marka dhibaatada weyn oo dhibaatooyinka ka midka ah waxaa weeyaan cultural shockgaas, isku dhaca dhaqan oo dhacay, cadaalad darrada joogtada ah, ayadoo laga cabsanayo in dhibaatooyinka jira la abbaaro, yaa waxaa keenaya dadku inay kala waswaasaan. maxaa kaloo dhintay? waxaa dhimatay himiladii qarannimada Soomaaliyeed. dadka Soomaaliyeed waxay haysteen oo higsanayeen aragti dhahaysa laba Soomaali ah isku darantay, Soomaali weyn baa la raadiyay, 3 Soomaali ah dhiman dam waaye. moogtay halkaas iftiinkii waa damay. amaasanta professor. waxyaabaha Soomaalida kala geeya ee hadda kala qaybiya awood qaybsigooda uu ku dhisan yahay waxaa ka mid ah reereysiga ama qabiilka oo hadda ay ku dhisan tahay awood qaybsiga Soomaaliya. hadda waxaa isweydiin mudan qaab dhismeedka qabiilaadka waxa ka run ah halka uu ka soo unkamay, maadaama professorku in muddo ah uu darsayey isirka Soomaalida iyo habka qaab dhismeedkooda muddo ka badan 30 sano uu daraasad ku waday. waxa uu ka ogyahay qaab dhismeedka qabiiladaas hadda aan la jidbeysanahay iyo waxa ka runka ah inuu bal dultaag ku sameeyo. bismillahi raxmaan raxiim. horta waxaa weeyaan anu aragtida aan qabo waxaa weeyaan qabaa'ilka Soomaalidu waa nidaam iyo hab dadku ay u nool yihiin, laakiin dhiig ma aha. maadaama uuna dhiig ahayn, qofka wax ku dilayo inuu qabiilkan uu yahay oo qabiilka qofka kaleeto uu dilayo in uu ka qabiil duwan yahay, waxaa laga yaabaa inay isku qabiil yihiin. ha fiirsado. moogtay waxaa weeyaan qabiilka Soomaaliga waa dan. wixii isku dana isku qabiil ah. wuxuuna ku dhismaa qabiilku dan. haddaay waxaan sheegnay 6 tiir, 6daa tiir waa dan waaye. moogtay marka dantaas ayadaa kaa adag.
abaar baa imaan karto daacun baa imaan karo waa la baabi'i karaa dagaalaa imaan kara si dynamica iyo bulshadaasi si joogta ay ugu samaysmaysaa oo si joogta u baabi'i kartaa maaragtay marka waxaan formulaha loo qaatay inuu dhiig yahay ma ahan waxaa weeyaan waa interest waxaa kaleeto aan jeclahay inaan idiin sheego qaranka markaan fiirinayna hadday oo aan ka hadlayna qaranka Soomaaliga ah waxaan ka hadalay waxyaabaha dadku isaga mid yahay aan ka hadalay qabiilku kulligii ma wada xuma waxaan qabiilka la sheegayo totally ma xuma qaybo waxaa jira in la tiro loo baahan yahay oo laga tago iyo qaybaha hadda aan laga tagi karin qaybaha laga tagi karo waa tan dadka lagu nacayo waa tan dadka lagu dilaayo waa tan la siyaaseynayo oo dhibaatada loogu hogaaminayo qaranka Soomaaliyeed inuuna kicin waa mid laakiin qabiilku dhinaca uu positive ka yahay waxaa jira maaqa waxaa laga yaabaa dad oo diaspora inay ku jiraan oo banaanada maaragtay dadka anaga waaweyn ma ahaan dhalinyaradiina inaad laga yaabo inaad ama inaad tagteen ama inaydaan tagin dowladaha banaankaas oo horumareen waxay bedelaan qabiilka Soomaaliga meesha positive ka hortaan ayaan ka bixin waxaa weeyaan wuxuu ku salaysan yahay dhinaca wanaagga marka laga eego isgargaar iyo taakulayn iyo ceel la isla qoto iyo xoolo la isla raacdo ma garatay iyo war la isla qoto iyo haddii dhiig la galo in dhiigga la isla bixiyo waa assurance waay moogtay marka assurance-gaas dhaqanka Soomaaliga waa communitaire waay haddaad qof keligii iska taagan aad noqoto qiimo ma lihid waa inaad mar walba ku dhex jirto group marka waxaa waaye groupkaasi wuxuu ku siinayaa caymisa in bulshada inteeda kale ay ku tixgeliyaan iyagiina waxaa ka dhaxeeya xidhiidh marka dhinaca ay wax ku yeelayaan dadka oo ay dhibaatada ku abuurayaan qabiilka waa in laga joojiyo si ku meel gaarana waxaa loo wadanaa inta uu ka yahay positive oo isgargaarka iyo istaakulaynta ku salaysan moogta hadda aabaha baad gacan siinaysaa walaalka oo dhaqaaleysan baad gacan siinaysaa wadamada banaanka oo Yurub anaga waan shaqeynay waa la shaqeeyaa waxaad noqonaysaa retire oo hawlgab noqon hawlgab markaad noqoto meel yar oo lagu sugaday intaad dhimanaysaa tagaysaa mushaar baad qaadanaysaa wiilkaaga oo ma baahnid cidna oo ma baahnid waa lagu xabaalaha maaragtay halkan laakiin waa la isxabaale waa lagu masruufi waa lagu adeegaa gacanta lagu hayn dhaqanka dhaqan fiican waay waa inaan laga tagin ma garatay laakiin kan wax lagu dilaayo lagu nacahayo wax lagu xasdinayo soo ma garan oo dhibaatada keenaysa oo dadka kala fogeynaysa qaabka looga bixi lahaa waa in laga fakaro maaragtay marka kaa waaye maaragtay kan oo dhibaatada iyo wareerka leh dowladnimadu marka haddaaban kari karnaba waaye moogtay yaa sibaad moodaa anaga inaan u indhalaanahay moogtay indhalaan weyn baa jirto oo meesha aan u soconno iyo meel aan ka soconno midna ma naqaano waxaad moodaa baansiin iyo dab inaan la ordayno oo mar walba meeshaan tagnaba dab iyo baansiin aan gelinayno laakiin waxyaabaha loo baahan yahay waxaa weeyaan waa in anaga ay jirto cadaalad soo ma garan waa in dadka dhalinyarada ah oo mustaqbalka leh oo wax baranayo waxbarashadooda la xoojiyo waa inay shaqo helaan waa in dadku inta ay dawladdu ka damaana qaadi karto 10 sano waxaa laga yaabaa inaan noqono 10 sano kadib wadan aad hodan u ah baansiin leh khayraad fara badan oo hadda aan la aqoon leh waxaan leenahay enerjiyada oo qoraxda lama develop gareynin reer galbeedku ma ogola inay develop gareeyaan laakiin haddii la develop gareeyo waxay ka xoog badan tahay baansiinka warshadaha ka dhalan kara korontaa ka dhalan karta wax walbaa ka dhalan kara waxaan leenahay dabaylaha inaan isticmaalo ayaan yeeli karaa waxaan yeeli karaa webigu meeshu badda kaga daro in turbino inta la isticmaalo يعني مارتي قلبيو iyo warshado loo baahan yahay laga sameyn karo yani waxa weeyaan marka inta aan ka gaareyna inaan isku filaan noqono oo ay dawladdu bedeli karto qoyska ay bedeli karto waxa waaye qoysku positivist waxyaabaha fiican oo uu leeyahay waa la deynaa laakiin waxyaabaha foosha xun oo reeraysiga ah oo dawladda la dhex gelinayo
oo cadaalad darrada ah oo xagjirnimada ah war xaggeen ku aragnay 1000 magac oo wadaado qabiilka waxaa ka daray wadaadadii inta waa ictisaam inta waa itixaad halkan waa shabaab halkan waa futuud halkan waa maxaa la waxaan arkay kuwa dhahaya quraaniyana la dhaamo waa oo kitaabka quraanka amaana xadiid iyo waxba ma ogolin waxaasoo dhan waa dad jahwareer ku dhacay marka haddii iftiin la helo oo dawlad wadada dadka toosan tusta soo ma garan oo caqiidadeeda haysata oo siyaasadeedu meesha u socota ay caddahay dadka jahwareerku ka baxaa moogta marka waxaa la rabaa in la isla doono hal qof oo xal haya ma jiro ma garatay hal ma hayo qof xal haya ma jiro laakiin xalku wuxuu ku aasan yahay kulli dadka dhan marka talooyinka in la isu keeno talooyinka marka la isku keeno in lagu dhaqmo oo halkaa la abaaro marka waxaan malay aad baan u hadlay waxaa laga yaabaa inaan jawaabihiidan ka lumiyey laakiin waan professor aad aad umahadsan tahay insha allah gabagabada iyo gunaanadkii qaybteena ayaynu insha allah mari doonaa waxaynu fursad idin soo doonaa insha allah inaad su-aalo warsataan professorka dadku aad ayay u badan yihiin insha allah intii aan haleelno aan ka gaarno insha allah wada qaadan doonaa ugu dambeyn su-aasha aan professorka insha allah aan weydiinayo waxay tahay sida aad ka dhawaajisay dhibta soomaali haysata wuxuu kasoo unqamay herdan ka jira dhaqamadii kala duwanaa ay soomaalida soo qaateen oo mid isticmaalku keenay iyo mid odayaashii dhaqankii iyo laga tegay dastuur aan dalka ku habbooneyn oo loo qaatay haddaba maxaa xal ah oo soomaali aad leedahay way ku samata bixi kartaa horta waxay ku samata bixi karto waxaan u malaynaa waa inaan annaga kulligeen isla raadino waxay ku samata bixi karto hadda fiiri example yar baan rabaa inaan ka hadlo dastuur baa noo yaalla annaga dastuurkaas yaalla diinta wuu tixgelinaa xeerka caalamigaana wuu tixgelinaa dhaqanka soomaaliga ma tixgelinayo marka koow dastuurku annaga hadda aan ku dhaqmayno waa kharaab waaye mugta waa inay dastuurku uu noqdo dastuur ku fadhiya annaga dhaqankeenna diinteenna aanan diidaynin inay aan xidhiir la yeelano caalamka maaragtay waxaa weeyaan waa marka su-aasha si fiican ugu celi hadda intaa waxaa waaye de waa hordhac bay ahayd yaa maxaa soomaali samata bixin kara waxa soomaali samata bixin kara waxaa waaye inay si fiican oo qalbi bannaan u wada hadasho haddaa maxaan ka hadalay shirar baa dhaceen waxaa laga sheekeynayaa heshiisiin iyo dib u heshiisiin weligaanana kumaanaan heshiinin inaan dagaalo weligaanana kumaanaan heshiinin inaan heshiino marka hadda waxaa lagu dhahaa dib u heshiisiin anu hadda guddi baan mas-uulka ahay maogta baarlamaanka marka guddiga waxaa la dhahaa guddiga xaqiiqa raadinta dib u heshiisiinta been waaye waxba kama jiraan meel soomaali intay shirtay ay go-aan ku qaadatay waryaa aan islayno yaa yaqaan ma maqasheen idinka meel intay fadhiisteen ay heshiiyeen oo aan nabadna intay dhaheen heshiis caadiya laga hadlayna ma jirto marka dib u heshiisiintu waa khalad heshiis baa la rabaa marka annagoo islaynaynaan aragnay marka koow waa in dadka soomaalida ayaga oo la adeegsanayo dadka qalbiga dadka jilcin karo oo culimada fiican amaha kuwan balaayada geesaha fiiqfiiqan marka la isticmaalo culimada iyo diinta la isticmaalo xeerka soomaaliga la isticmaalo in ay dadka soomaalida la soo dhaweeyo qalbigooda
in mashaakilada jira si fiican loo abaaro in hadda xamar baan joognaa oo kale xamar caasimad waaye moogta xamar waxay magaalo la wada dhistay magaalada xamar maalan hadda xamar waxay xamar ku noqon kartaa marka uu qof waliba uu iska dhex arko xamar inuu wax ku leeyahay inuu gurigiisa heli karo in uu gurigiisi meeshaan ay gurigiisi tahay hadduu qofka Soomaaliga ah uu cuqdadaa qabo midnimada Soomaaliyeed unugeedu waa halkan maaragtay meelaha kale dhan particularity bay leeyihiin marka waxaa weeyaan dadka waliba xamar degan dhalinyaradiina jaamacadaha dhigata waxaa la rabaa doodaha noocan oo kale in la furo waxyaabaha taabuu waxaa la dhahaa waxa aan laga sheekayn waxyaabaha aan laga sheekaynin waa inaad ka sheekaysaan oo xun oo dadku lagu sameynayo oo la isku sameynayo waa in laga hadlo waaye soo ma garan waa in uu jiro relation iyo xiriir baarlamaanka Soomaalida oo kaleeto been badan baa laga faafiyay ma wada xuma dad fara badan oo fiican baa baarlamaanka ku jira xiriir la sameeya la shaqeeyo hala qabto shirar Soomaalinimada waa in la soo nooleeyo soo ma garan ceeb bay noqotay Soomaalinimo wadaniyadu ceeb bay noqotay Soomaali wada fulay ah oo cabsanaysa oo inuu Soomaaliya ka cabsanaa inuu sheego anaga taariikh maana soo marin kuwaan saan waay idinka aad wad cabsanaysaan ha cabsanina Soomaaliyiin waa inaad ku faantaan Soomaalinimadiina inaad ku faantaan waay soo ma garan waa in qaabkii qarannimadiinu ay u soo noqon lahayd ayada oo gacmaha la haysto oo aad qalbi banaantiin aad ka shaqaysaan waa in aydan ninna ku xurmaynin ninna aydan ku tixgelin dadka siyaasiyiinta warka ay ku hadlayaan iyo warkiinu waa inuu kala duwanaado salka iyo aasaaska qaranka Soomaaliyeed waa idinka haddaad idinku la timaadaan in aad wax walba saxdaan cid hor istaagi karta ma leh maaragtay haddii laakiin aad wax ka sugtaan dadka sheeganaya inay madax yihiin inay iyagu idin hagaan waxaad sugaysaan boqolaal sano sugaysaan marka waa inaad kacdaan oo ma aha wax burburiye oo jajabiye ma aha waa inaad kacdaan oo u kacdaan maskaxdiinu inay kacdo xusuustiinu inay kacdo Soomaalinimadiinu inay kacdo midnimadiinu inay jirto qabiilka in laga tago waxaan qabaa waxaas oo faraha badan oo aan caawa lagu koobi karin oo laga yaabo haddii 5 6 7 8 9 10 mar xataa la isku soo noqdo aan la dhameyn karin in baashan shalongada ee dumarku lacagta ay qaadaan oo kale dambiil inta la qaado in la wareejiyo qof walba oo aragti fiican ku rito oo dambiisha waxa lagu guro markaa kadib ummadda Soomaaliyeed loogu taliyo maaragtay Soomaalidu markii ay joogto waxaa lahaa xitaa waxaa la hadaa naag shiinaysa guursato canug shiinaysa ku dhalata canug Soomaali oo ku dhalayso sida jiinka Soomaaliga uu weyn ku yahay أنا أمرك هنا أيضا لو سكان كاني وضد سكان كاني هاي تقدر تجين كود وحنا نربط ويجا سيدا كلو حاكي ساعة قيس لقيها بيني غاية يعني المدارس كده لا وحاكي ساعة عن كتب ونقص كده أيام تحتها أو مذو أو عاد أما تمجي الإحسان أو تما جريدة له مركا سيدا كلو حاكي ساعة dadkii waxay leeyahay in kooxdii waxay aaminsan qaarkood waxay leeyahay waxaan in Afrika qaarkood waxay leeyahay waxaan Carabta qaarkood waxay ka soo jeedaan Ethiopia iyo Habasha qaar baa India sheeganaya kuwa u ogolahay in xeebaha degan oo aan caad ku naqaan marka laga reebo kuwa kale caadi ah Soomaalida ah iyo raacatada ogolahay asaasiga marka waxaan rabaa professorka inaan weydiiyo aragtida ku qotonta qaybaha kala duwan ee Soomaalida ay ka kala yimaadeen iyo siyaabaha sigoo daahqaadaya su'aalaha hadii jiraan asalka Soomaaliga oo la leeyahay waa markii xitaa aad guursatid naag ama nin hadda guursatid ajnabi ama Shiinaysa ama Afrikaan kala ama cadaan ah jiinkiisa ka xoog badan Soomaaliga waxa laga yaabaa inta badan 90% inta badan inuu noqdo cunuggaas cunugga ay qofkaas kala ajnabi marka sababahaas aan rabaa inaan wax badan professor markii hore soo sharaxay waxaan ku weydiiyey islaamka waa uu soo gaaray Soomaaliya islaamka waa uu soo gaaray inta labaad haddii waqtigii nabiga soo gaaray oo waa islaam tahay dhaqanka dadka Soomaalida maxay macnaha
وحي الإسلام الإسلام محروف أقف كتابك وضع وستك محروف الإسلام وضع وضع قوي أنا وضع حاجة سؤال بسم الله الرحمن الرحيم سؤال شو هو الرئيسة وسؤال su-aasha hore waxaan u malaynayaa waa su-aal oo u baahan waayo baadhis waa su-aal aan si exacta looga jawaabi karin waxay ku salaysan tahay aaraa odhaah ama ogta soomaalidu waa caad ahaan markii maaha in la tirmaayo laakiin waxaa weeyaan soomaalida waa la dhahaa way jeenkoodu wuu jilicsan yahay laakiin wax daraasaada oo cilmi ah oo lagu sameeyey oo aan isku salayn karo oo lagaga jawaabi karo su-aasha ayadaa ma jirto laakiin in soomaalida raas ahaan raas jilicsan ay yihiin oo ciddii xoog leh dad cad oo caddaankoodu adag yahay iyo dad madow oo madowgoodu adag yahay haddii ay guursadaan kaasaa xoogsana laakiin fasiraaddeeda waxay u baahan tahay daraaso iyo baadhis baan u malaynaa dheer marka taas waxaa waaye su-aasha koowaad baan ooga baxaa jawaabteeda waxaa laga yaabaa inayna ku qancinin laakiin de waxaanan ani garanayn markaas kama jawaabi karo moogta su-aasha labaad waxaa waye islaamku goormuu imaaday islaamku run ahaan waxaa la dhahaa de moogtahay sida annaga aan hayno inuu madiine ka hor yimid xeebaheenna maaragtay waxaa kaleeto oo jirta muxuu u dhaqi waayey su-aal aada u fiican waaye dadkan waxay lahaayeen culture iyo dhaqan number one adag baa la lahaa marka aada fiiriso diinta islaamku say ku timid say ku faaftay ooy soomaaliya ku gashay ma ahayn qaab oo maaragtay dagaal iyo cunfi iyo ma ahayn moogta marka dadkii aan qabo waliba maaragtay inay dad xikmad badan ay ahaayeen oo diinta islaamka faafinayay waxay raadiyeen meelaha ay ka dabaqi karaan in diinta islaamka ay ka geli karto dhaqanka soomaaliga moogta marka waxaa waaye maalan hadda markaad fiiriso structureka soomaaliga ah ee la abtirsanaayo oo aabbaha lagu abtirsanaa oo socda iyo xarakaadkan suufiga ah oo soomaaliya ka jiri jiray kana jira hadda waxaa weeyaan waxaa jira ayadana abtir oo la dhaho oo abtir awliyaad baa la dhahaa moogta silsiladan ay wadaadadu kala qaataan waxaa waaye waxaad ku abtirsanaysaa ninkii wadaadka ah oo ku khaliifay oo yani waxaa weeyaan marka meel allaaliya meel kasta oo diintu marka way sahlanayd marka hore way sahlanayd hadda sheekh yuusuf alkawneyn wuu imaaday markuu yimid oo soomaaliga oo carabi inii la baro carabigii inuu adag yahay oo dadka soomaalidu ayna fahmaynin markii la arkay iskooladan baqdaad loo aado baa la tegey marka alif laashi wixii baa la tarjumay af soomaaliya loo bedelay waxaa laga dhigay afka soomaaliga markaas isaga oo soomaali ah in wax lagu higaadiyo marka si tartiib ah wakti dheer bay qaadatay dagaal ma lahayn waxaa laga yaabaa si qubande inaan oga jawaabo su-aasha maaragtay laakiin hadda yuusuf alkawneyn oo kale actigaas oo kaleeto waa muhiim actiga abtirka dhiigga ah iyo abtirka awliyada oo kaleeto way ishabahaan ninka sheekha iyo ninka kaaba qabiilka ulahan ay qaadanayaan way ishabahaan qabaa'ilka xoog bay lahaayeen ninka wadaadka ah haddii ay reeraha baadiyaha degan ay ogol yihiin inuu diinta dhigo structureka mar walba waxaa xoog lahaa dhaqanka ah ayaa xoog lahaa waxaa kaleeton rabaa inaan idin xusuusiyo diinta islaamka
hadhow maa inaan leeyahay gaalaa la ahayaa laakiin diinta islaamka waxay ka soo gashaa dhaqanka soomaaliga ah guurka iyo furista meel kale oo ay ka soo gasho dhaqanka soomaalida ma leh dhaxalka waxaad arkaysaa beelo gabdhuhu geel lama siiyo ma dhaxlaan lo ma dhaxlaan meelaha qaarkood oo geedahan xijiga oo fooxa iyo bari oo kale gabadha ma dhaxasho waxaasoo dhan islaami ma aha mogta marka waxaa weeyaan islaamku asagaa wuxuu dabaqay dadku sida ay u noolaayeen noloshooda in loo diido wixii loo daayo wixii laga bedeli kara in laga bedelo marka tan hadda socotana waa brutality mogta tan hadda socota meesha taasi ay tartiib u socoto diintu ay tartiib u faafaysay kuwa hadda jooga qadaadka dadka la qabana ama waa lagu qalaa waa lagu tuuraya mogta marka waxaa waaye baashu progresskaas bay ku socotaa tartiibtaasi u socotaa waxyaabo kaleetoo fara badana waa jiraan laakiin diintu ma ayna ahayn diin oo cunfi iyo oo dhibaato maaragtay ku salaysan laakiin waxay ahayd diin dadku qaabka ay u samaysan yihiin la isku dayo in wax lagu fahamsiiyo mogta marka mana dhaqi karaan dhaqanka soomaaligu waa strong waay mogta haye marka waxaa weeyaan wadaadku hadda waxyaabaha jabay oo burburay oo aan ka hadlaynay haddaay dhan wadaadadii hubbay qaateen kuwii wadaadada ahaa oo wadaadnimada markaan haddaay ka hadlaynay wadaad iyo waranle iyo waable aan ka hadlaynay wadaadadii waxay qaateen baabuur technica ah qoryay qaateen wadaadnimadii waa ka tageen waran lay noqdeen dadka ayagaa laaya soo ma garan bulshadii oo dhan waxaa ku dhacay dabarog waxaa weeyaan waa changea socdo marka aniga waxaan u malaynayaa taa waxayna tusaysaa annaga dhaqankeenna in uu yahay dhaqan adag oo ka horreeyey diinta islaamka intayna imaanin adag buu ahaa mogta marka diinta islaamkuna adeegaa markay aragtay si tartiib ah iyo isku dayda inay maaragtay bulshada iyo nolosha dadka ay u gasho marka waxaa weeyaan waa kolley de maaragtay ani aragtidayda waa sidaa wax la dhaqi karo inta mar dad loo imaado oo laqaqabtana hal maalin islaan lagagama wada dhigi karaa ama waa inaad layso ama waa inaad sugato si progressive ah maaragtay dadku inay diinta u fahmaan u socdaan waxba lama khasbi karo maaragtay marka taasaan u malaynaa maaragtay tan keenaysa in bulshada soomaalidu ay sidaan u adkaato oo dhaqanku sidaa u adkaado taasaa keenaya inaan ka bilaabo waxaa noo sheegtay afka soomaaliga inuu kasoo bilaabay kushiin waxa la yidhahdo kushiintana waxaa noo sheegtay in uu dhalay xaam uu dhalay nebi nuux marka meeshaas waxaan filaynaa inuu yahay kushiintigaba qof inuu yahay marka su-aasheeda hadda u dhigantay waxaan rabaa afka soomaaliga cadabigu oo la bahyahay mase uu kasoo jeedaa taasaan rabaa inaa koobaad waxay tahay waxa la yidhaahdo soomaalida waxaa tiri afar wadan geeska afrika ku yaalla ee hadda u qeysan yihiin ama ay ka tirsan yihiin waxaan aaminsanahay qeexid la-aanta la qeexi layahay hadda qofka soomaaliga ah mushkilad weyn oo na haysta waaye oo aan ognahay in ilaa hadda crisis ugu waaweyn ee dowladdan haysta ee qeyb ka tahay qofka soomaaliga ah waa kuma dowladnimada waxaan u malaynayaa qaybsiga isticmaalka uu qaybsaday wixii ka horreeyey soomaalidu mushkilo kuma qabin xuduudda ka hor marka ma jireen meelo kale iyo dhacsi sidooda isugu xirnaayeen oo isticmaalku markuu qaybiyey ayaa la dareemay xuduudda mise markii horeba dowladahaas ay hadda ku kala jiraan ayay kaga badnaayeen ku xirnaanshaha soomaalida kale su-aashaasna waxaan rabay in si un aan u tilmaamo xalka waxaa hadda aad u aragto waxaan u malaynayaa qodobada ugu waaweyn hadda dastuurkeena xalka loo leeyahay waxaa ka mid a alhuwiya soomaaliya ama qofka soomaaliga ah qeexidiisa ku dhashay weli ma qeexin dastuurka dib waxaa waaye eegis laguma sameynin weli waana wax taagan iyada laftarkeeda waxa xalka uu kula muuqdo waa mahadsantahay su-aasha koowaad waxaa weeyaan horta afkan annaga aan ku hadlayno oo aan leenahay kuushitiiga waxaa jira waxa la dhaho
bahdan oo annaga kuushitiga afkan aan ku hadlayno iyo samiidka waxaa la isku dhahaa Afro-Asiatic language moogta marka halkaasaan xidhiidh ka leenahay laakiin wax xidhiidh ah oo annagu aan ka imaanay carabtuna waa samiid oo markaas hadda abtir ahaan haddaa aan ka hadlayay macnuhu maaha inuu sax yahay waxaa weeyaan mar dadku waxay u arkaan sida diiniga ah ninkaa kuusha in laga imaaday marna dad shacbi ah oo ku noolaa meesha afku ka yimid baa loo nisbeynaa laakiin dadkaas loo nisbeynayo afkaan hadda aan ku hadlayno uu ka imaaday waxaa weeyaan afkoodu ma aha af carabiga hadduuna ahayn maaragtay Afro-Asiatic language-ka in loo nisbeeyo ma ahane afkeenu carabi ma aha moogta afkeenu waa kuushitig kamana soo jeeda carabiga maaragtay su-aashan oo maaragtay walaalkan uu soo jeediyey oo kale waxay taabanaysaa siyaasad ballaaran oo mustaqbalka imaan doonta moogta lagana yaabo waqti dhow inay timaado waxaa weeyaan waa arrinta ku saabsan yaa Soomaali ayaan Soomaali ahayn annaga yaa Soomaali ayaan Soomaali ahayn maanta marka laga hadlayo laga soo bilaabo 1960kii dadka Soomaaliyeed oo dhan oo aabba la raacayo waa Soomaali nationality-goodana waa Soomaali tan la isticmaalana waa tan 62 61 ilaa 60 soo socotay waay waxaa isbedel uu ku dhacay 2000 iyo 2004 shirkii Imbigati waxaa lagu kordhiyey awal hore waxay ahayd qofka Soomaaliga hal nationality buu haystay inuu qaadan karo laba nationality laakiin mustaqbalka inta laga gaadhayo in la xadido oo la dhaho ama dee Soomaalidii kala tagtay kuwii wada socdayna waa kala tageen kuwii kaleetana waa tageen laga leeyahay annaga Soomaali ahaan dadka Soomaaliyeed waa Soomaali qof kasta oo imaada waa Soomaali nationalities waa Soomaali dastuurkeenuna sidaasuu dhigaa haddana waxaa weeyaan laba nationality buu qaadan karaa wax mushkilada oo weyn oo jirtana ma leh mushkiladda weyn oo jirta waxaa weeyaan midda siyaasiyiintu ay abuurayaan moogta laakiin waxaa weeyaan waa in markii ay timaado loo diyaar garoobo haddii beri ka maalin reer Jabuuti hadda waxaa waaye waa dowlad dadka Soomaalidu halkaa kuna culays ma saara hadday dhahaan annaga waxaan nahay reer Jabuuti identity baan leenahay passport baan leenahay halkaasaan ku noolaanaynaa dee waanu baxnay waa okay hadday kuwa Ethiopia ku nool dhahaan annaga baddi waan ka baxnay annagana waxaa weeyaan waxaan nahay entity Soomaaliya oo Ethiopia ku nool waxaan rabnaa sidaan nahay annaga in loo daayo ayadana waa baab kale hadday kuwa Kenya ku nool ay dhahaan sidoo kaleeto ayadana waa baab kale laakiin ilaa ay hadeertaan iyagu choice bay leeyihiin laakiin annaga choice ma leeyin dastuurkeennana waa kii 60kii arrinta la xidhiidha nationality-ga marka taasaan jeclahay inaan maaragtay uga jawaabo su-aashana waxaan u malaynayaa inay tahay su-aal oo hore tibyeyn ah moogta warkaas uguna socdaa wuuna iman doonaa laakiin markaa waqtigeeda in la sugo sidii xalka loo helo maaragtay islaamka ka hor musan loo imaan salaam u imaan maxaan aaminsanay caqiida ahaan waxaa jirta aragti ah in annaga iyo oramada dadka halkaas degan iyo Itoobiya dadka degan inaan diin ahaan isku dhaweyn tusaale ahaan oramada qaar waxay caabudaan wax la yidhahdo waa wax la yidhahdo caabudaan waaqaas asalka hore Soomaaliya waa ka jira la leeyahay waxaa tusaale u ah caabud waa magaalo aan leenahay anaga mugtahay marka caabud waa qasab ka timid caabud waa wixii la caabudayo mugtahay ceel waa ceelka ilaahay wax noocaas camal ah Soomaalida ka hor ma jiray diinta islaamka hore بسم الله الرحمن الرحيم
waxaa weeyaan horta islaamka ka hor dadka soomaalida waa jireen waxaa laga yaabaa dadkii markaa deegaankan ku noolaa qaarkood inaynay diin lahayn way ahaayeen dad aatee ah maaragtay ama animiste ah inay ahaayeen waxaa weeyaan dadka aagga annaga aanu ku noolahay wuxuu ahaa aag u dhow meelaha diinuhu ka soo baxaan marka waxaa noo dhowaa oo jiray etoobiya oo kaleeto waxay ahayd masiixi ilaa iyo wakti waxaan u malaynaa waxay masiixiyadda qaadatay etoobiya qarnigii 3aad oo ciise ay qaadatay yaman yuhuud baa jirtay cilaaqaad baan lahayn ayaga masiixiyad baa jirtay masar sidoo kale cilaaqaad baan lahayn ayadana waxaa jiray masiixiyad marka lama dhihi karo intii aanan annaga islaam noqonin ka hor ama yuhuud ma jirin ama masiixiyad ma jirin ama cawaan lama ahayn moogta intaba waa la ahaa maaragtay waxyaabo badan oo raad ah oo muujinayana waa la heli karaa maaragtay in ama ay jirto maaragtay in oo diinaha samaawiga ah la haystay ama haddii kaleeto ayna waxaa jira maalan qarnigii 15aad 16aad oo kaleeto markii dagaaladii maaragtay oo axmed gurey lagu jiray kaaba qabiilada qaarkood oo qabaa'ilka soomaalida madaxda ka ahaa qaar baa waxay ahayn masiixi moogta garate waxyaabo fara badan oo annaga dhaqankeena ku jira waxaa jira waxaan si samiitana aan u wadaagno dadka samiidka ah qaarna aan si gaara u wadaagno oo yuhuud oo kale baa jiraan hadda maalan marka laga hadlayo dumaasha oo kale dumaashu waa dhaqan oo yuhuudeed waaye maaragtay marka waxaa la dhahaa lovira moogta lovira baa la dhahaa systemka xigsiisanka waa system ay samiidkuna isticmaalaan annagana aan isticmaalno hadda maalan markii cuثmaan binu cafaan 2 gabdhood oo nebigu u dhalu qabay waa xigsiisan waaye laakiin annaga xigsiisanna waan leenahay dumaalna waan leenahay marka dumaashaas waxay u dhowdahay dhinaca maaragtay cultureka oo yuhuudda oo markii qofku uu dhinto haddii uu dhinto oo asaga oo aan lahayn wiil aan lahayn walaalkiis baa wuxuu guursanaa xaaskiisa wuu socdaa wuu jiraa weli marka ilmaha ay islaantu dhasho asagaa lagu magacaabaa si aan magacii u tirmin asagii oo dhalay baan lagu magacaabayn moogta marka dumaashaas waa jirtaa waxyaabo aad iyo aad u fara badan oo runtii dee caawa mawduucan waa uu gabagabaysan yahay laakiin waxyaabo badan oo raadada oo muujinaya maaragtay inaan annagu xeeb furan aan ahayn oo caqiidooyin fara badan dalka ay ka jireen oo waxyaabo badan la aaminsanaa way jiraan tan hadda aad ka hadlaysay ereyga oo waaq waa kushitik waaye waa ilaah waana cirka labadaba waa la dhahaa marka waxaad arkaysaa markaad magacyada qaarkood iyo meelaha locationka qaarkood markaad fiiriso waxaad arkaysaa xataa inaan dadku uunan ahayn monotheist waxaa la dhahaa dadka halka ilaah caabuda waa innaga iyo yuhuudda iyo masiixiyiinta marka waxaa weya waxaad arkaysaa hadda waaq biyo oo kale qabiil baa la dhahayaa waaq biyo waxaa waaya ilaahay biyaha moogta maaragtay waaq bari diinsoor zoonaheeda waaq baraa jira moogta waaq waa ilaahay bari waaye moogta marka waxaa weeyaan ma laha hal ilaah ma jiro mid baa biyaha ah marka mid baa wuxuu yahay dhinaca bari mid baa wuxuu yahay dhinaca galbeed ceelkii ilaahay yacni ma muujinayo astaan keli ah oo inaan caabudayna hal ilaaha ma jirto taa waxay kuu muujinaysaa inaan markaas
diinihii samaawiga ahaa ayna ahayn diinaha noocaas oo kale ay ka horreeyeen marka abtirada soomaaliga markaad fiiriso waxaad arkaysaa xoog waaqu ugu jiraa moogta hadda waxaad arkaysaa maxaa lahay jid waaq oo kale jid waa waddadii ilaahay waaye ma garata amarti waaq waa amarkii ilaahay waaye siwaaq roon waa siin waaq roon ilaahay wax uu ku siiye waxa u fiican waaye moogta